telefishinka caalamiga ah ee alas sabscribe saar oo la wadaaga asxaabtaada si aynu kugu soo gudbino wararka caalamka. qaybtii dambe khudbadatan ku soo qaadanay ninkan hadda la soo magacaabay qaramada midoobay oo la Hayson kii hore lagu bedelay Nicholas Cage oo maankii hore ko abari ya markii qarax lagu sameeyay Nicholas Cage meel madaxtooyada teeda magaciisu kasi waay gaalada madaxaagii moogtay magacoodu waa adag yahay markaas hebelo maanta ma maqashay Nicholas Cage yaa u gooyay marka ma ogtahay Sona Cage in la qarxay maanta Sona Cage war Sona Cage ajees warkii qaramada midoobay u qaabilsanaa maxaa magaciisa Sona Cage Soomaaliya ma Sona Cage baan muxuu ah Nicholas Cage alija ha marka Nicholas kortay wada wadaagan kaasna Cage waa kan Hayson la yiraahdaa waa nin oo reer Yurub ah waa Koonfur Afrika marka ogsoontiin midabta koorkay ku dheereeyaan waa nimankii yani gumaysan jiray madowga waa tay maalinkii la bedelayna aan idin sheegay oo aan ku iri ciyaartu markay meesha ugu dambaysa marayso 90 daqiiqo ugu dambaysa markay marayso oo yani goolna lagu leeyahay yani ninka oo tababaraha ah warqadii ugu dambaysay soo galiya oo uu leeyahay ka gaarsii inta waqtiga ka dhiman Soomaali ayadoo aan dawlad lahayn intaas oo sano ya adduunkii dhinac walba way arkeen inay noolaan karaan si kastoo la isugu day inay baabaado way baabi weys dadkii hawlahooda iska qabsanayaan wadamadooda goboladooda iska dhisanayaan guryahoodii ay qurux badnaanayaan hor u socda waxay dhaheen kuwaan haday saan ku sii socdaan dagaaladaas intay ka dhamaadaan ayay khalaas waa israaci doonaan halaga gaarsiiyay marka ciyaar kulul hadda bilaabatay marka ciyaartii kulul waxay ka bilaabatay gobolka Bay magaalada Baydhabo oo hadda Baydhabo marka ama la hadasho ama dad ay tahay waxa ka socda iyo sel isu daba maraayo iyo murashaxiinta iyo lacagta iyo sida ay tahay arin ka weynaa magaalada la galiyay ko wuxuu sheegay wuxuu yiri muqaayad meeshaas ku taala oo magaalada ya murashaxiinta qaarkood wuxuu yiri muqaayadaas ilaa doorso laga gaarayo ninka muqaayada iska leh ana lacagta siiyay waa la iska cuni karaa hadda koor waxa ku oli jirtay Baydhabo muqaayada la furay waxay ku taala Afridood baarka waxa la dhigi jiray baar iska aamow macnaheedu waa la iska cunaa way macnaha kuwa marka wuu akhri iska aamow wuxuu malay intii la iska cunay in la iska tagay wuu ku soo leexday wuu cunay wuu sii bixirabaab waxa la lacagti ma iska dhiibtay maqalka ma mirtid raas maqalka maxaa u maraya akhri kor maxaa ku qoran baar iska aamow ma oho markii dambe waxa lagu qoray baar iska aamow iska dhiibow marka cunto waa inaad iska dhiibto inaad iska dhiibtana waa la rabaa marka hadda waxa soo iska aamow yaa la soo celiyay waxa maqaayada iska gala iska cuna leedinka bas lacag bixinina waa mahadsantiin sadaqa fiican masaakiinta ka noolaato way fiican halaga dhergo laakiin waxa la rabaa horta dhulka qofna ma duubanayo dhulkin buu ahaanaya dadkana waa dad ehelo dadka la tagaaya ma ah kii guuleysta iyo kii laga guuleysto kulli ugu dambaysta meeshan baa la wada joogaa waxa rabaa marka inaan ummadda rabsho iyo dhibaato iyo isnacayb ya aad inaan dadka mugta giriga waxa hadii aad loo dalaco baawurku uu gadiya marka dambe dadka inaan aad loo dalacina la rabaa intii tartiib loo dalaco kisto yar xoogaa yara jirta waa yaris jiidaya yani intaas markay dhamaatana waa iska caadi anu waxaan kula tilaa siyaasiyiinta iyo markay ay doorashooyinka ay nafta iska qaadayaan war waxan waa ciyaar hasdaalinina wama hay'atu dunya illa la'ibun walahu sama ciyaartana maxaa ku taqaanaan sida la isu xiiqinaayo ee nafta la isaga qaaday 90 daqiiqo markay dhimato kooxa laba gool looga badiyay ciyaartii Firimbi ugu dambeysay lagu dhuftay markay saa u dhamaato ciyaartooydu wada aragtay labadii kooxood markay ciyaartii dhamaatay wax kale oo la isu cuqdaday meesha ma taala funaanada iisiib ana funaadan ku siibaya saaxiibana waana ku laga badiyay siyaasadda saas oo kala raba inay noqoto markay xamaasadu jirto hal isjiijidaad yeel rabo laakiin markay dhamaato in funaanada la kala bedesho marka saaxiib waa maasantay waa ku guuleysay adna waa ku guuleysay wadankan wada dhisano maxaa yeel cid la bixin karo dhamaanaysa ma jirto in heshiis lagu aado walaal lagu aado ayay ku fiican tahay laakiin markay inoo imaadaan oo ina dhahan cuqdad inay kala geliyaan oo beesha caalamka idin imaatay kii hadda imaaday Haysonkii muxuu yiri markuu meesha tagay wuxuu yiri intuu la kulmay madaxweynaha Koonfur Galbeed Muqdisho Soomaaliya ma ah Soomaaliyana Muqdisho ma ah waa kelimo loola jeedo yani waa kelimatu xaqin urida bihal baadil maqlijid kelimo sadii si loo fiiriyo aan dib lahayn oo Muqdisho waa Muqdisho yaa yiri Muqdisho waa kaligeeda Soomaaliya waa magaalo caasimadii Soomaaliyeed magaalooyinka kalena waa magaalooyin Soomaaliyeed cid tiri ma jirto Muqdisho kaligeeda Soomaaliyeed Soomaali waa la yaqaan xuduudeeda in la haysto inaan la haysaninba waa la yaqaan marka Muqdisho waxay saa u leeyeen waxay diidayaan
ummaddaani muqdisho waa madaxii ummadda soomaaliyeed meelaha kale waxay kaga duwan tahay meelaha kale dadku ama way isyaqaanaan oo qofkii taga xataa dadku markuu soo gala way ka saayaan maanta qofaa soo biiray laakiin magaaladan waa magaalo weyn cid kasta cid taqaana ma jirto nin reer baadiya hadda kor waxaa intuu magaalada muqdisho imaaday wuxuu arki jiray baadiyaha iyo tuuladii waa dad hore isyaqaana moogtahay qofkii imaado oo safar ka imaada soomaalida deeqsinima lagu yaqaane waa la martigeliyaa qofaa asagoo meel fadhi markuu arko wuxuu soo bax gurigay ii raac gurigiisuu geynayaa markaasuu raashin soo siinaya waa qof dayf ah waa marti ah waa la sooraa martida soomaalida magaalada intuu soo galo meel iska fariistay suuqa ma dad yaqaana markaas dadkii qaarna xagay u socdaan qaarna wax u soo leexdu uu waay oo la hadloo yiraahdo bal kaale ila soo qaday guri laana inuu marti yahay cid ogba male marka dambe tumeeshiisa xoor wala dhageys waligiinba isdaba marmara aan idin kale marti idin ah marka magaaladan waa magaalo saas oo kala marka in la isu sheego magaaladan waa magaalo saas u weyn Soomaali oo dhan joogta waa meesha yaani maskaxdii Soomaalida ay taalo waa meesha Soomaali hadii wax loo qabanayo meesha wax looga qabanayo ay tahay yaani haday hagaagto waa qalbigii oo kale oo inta kale way wada hagaagaysaa haday hagaag weyso oo waligeed ay qasnaatana inta kalena way qasnaanayaan macna atraafta iyo dhinacyada halbowluhu iyo wadnihi haduu jiran yahay inta kalena mustawaha markii laga hadlaayana war Soomaali xagee joogto Soomaali sudan qato waa artay muqdisho lagu arkaa hadii qof Soomaali meel wax lagu yeelo waxa mudaaharaad sameyn waxa maxaa wax qori waa muqdisho iyo dadkeeda marka taas waxa keenaysa mas'uuliyadda la qaaday Soomaali xukuumadda balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta adoo tabartaadaba ay yartahay hadii reerka adiga uu kugu soo fakado markaas waxa dhayn balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta marka reer muqdisho ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika oo dhan ayaa fiirsanaysa marka waa balaayo waa tii reer oday kaaga dhigta marka si odaynimo in loo dhaqmo waxa la rabaa yaani walaaltinimada la xoojiyo goboladana la dareensiyo leeyahay war inagu walaalaanahay nin haduu yimaado banaanka inooga imaado oo inagu isku diraya warkiisa lama yeelo quraankana inoo sheego ilaahay wuxuu yaa ayyuhalladina aamanu marka safiir quraanku wuxuu la hadlaa aamanuna muxuu yahay ma qabiil ba aamanu qabiil ma ah aamanu waa wax la rumeeyo waa mabda la aaminsan yahay yaa ayyuhalladina aamanu in tudii'u alladina kafaru gaalada warkooda hadaad yeeshaan su'aad quraan ma suuratu al-imran soma in tudii'u alladina kafaru maxay idinku sameeyaan yarudukum ala aqabikum dib ay idin celinayaan fatanqalibu khasirin waad isku dhamaanaysaan maxaa la rabaa marka balillahu mawlaakum wa huwa khayrun nasirin halka ma soo fadhina oo ah wardada muslimiinaanahay mu'miniinaanahay muslimku wuxuu sheegay muslimka inuu walaalkii u yahay uqdada dhaxdeena Soomaali hadanahay waxba yaan la tafciilinin waa dadkan waa dad walaala maanta haday raay kala duwanaadaan bari ayay heshiin doonaan meel looma kala socdee uqdada yaan dadka lagu fogeynin in walaalay dadka loo sheego kuwayna dhahay waxba isuma tihiin waxa idin ka dhaxeeya malana innaga inay isku dirayna diinteenu saas ma sheegayso innamal mu'minuuna ikhwatun almuslimu akhul muslim marka maxaa meesha yaalaba hadana waxa naga dhaxaysa qaraabanimo oo Soomaali meel ma kala jirto abti iyo adeer iyo habaryar iyo eedo iyo walaal ayaa la isu wadayahay marka cadow iyo balaayo naga faadiisatee fursadayna siinay shayaadiinta ama kuwa insigaada ama kuwa jinnigaada aan walaaltinimadana xoojino oo dhexdeena ah cadowga makriga iyo shirqoolku inala doonayana aan iska ilaalino marnayayna dhicin dhexdeena colaad sokeeye in laga abaabulo ama laga abuuro cidii taa ku fikirtana horay ayaan uga soo daalnay oo waa la isdagaalay qof natiijo gaartayna male marka walaaltinimo waxay ku dhaanta male ilaahayna loo gaansamo diintiisa hala qaato safka aad ku jireysana aqoonso adu waxaad ka tirsantahay saf yaa ayyuhalladina aamanu la yiraahdo wuxuu ku dhamaadaa safkaas oo u sii socda nabigeena sallallahu alayhi wasallam ayuu maraya ilaa anbiyada ilaahay oo dhan qof kasta oo ilaahay amarkiisa qaatay oo malaa'iktu ay ugu dambeeyaan ayuu safkaas ku jira dhanka kalena shaydaan iyo intii jidkiisa raacday ayaa safkaas hogaaminaya marka safka shaydaanka isku gelin safka waxa gasha ilaahay iyo malaa'iktiisa labada xisbi u barakayay xisbiga ilaahayna waxa leeyahay xisbullahi ala innahum muflihun kan kalena waxa la yiraahdaa xisbu shaytaan ala inna xisba shaytaani humul khasirun marka qof walba mowqifkiisa iyo meeshiisa saasay u cadahay sidaas ha loo qaato oo xisbiga ilaahay jidka ilaahay diinta ilaahay dadka oo leeyahay khayrka dadkaas garab hala siiyo wa taawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithmi